maanta waxa isoo fadhiisay xanaaq waaye wajigay. Hi guys, soo dhawaada. Jimco wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantiin meel walba aad joogtiin. Subscribe, like, share, commentiga hanaga baqiilina walaalkeyga ama walaasheeda qaaliga ah. hadduu muuqaalku cusub yahay soo gaaro noo sii share garee please. maanta maxaan ka hadlayaa Kamaal Cabdulle arrintiisa oo waayahan saas u qasnad saas iskaga dawreegsaneed xaaskiisii afka furotay. bal aan dhageysana bal haddaa wax yar buuq maqashaan xaafadan joognaa nagu qaata noo dulqaata. Waxa u baneeyay waa saas macnaha waxyaabo badan oo waxa arkay oo aniga la igu ataagayo qofka ceebta dhan ay ku dhacaysan horta waa aniga oo la dhahayo qof ay qayaantay wiilkan way qayaan waxay dhahday waxyaabo badan oo lagu ataagayo ama lagu gafaayo gardar ahaan lagu soo gardaroonayo aan arkay oo la dhahayo wiilkan way qayaantay. gabadha waxyaabo badan ka sheekeynay. marka haddii Soomaalida waa taqaanaa haddii wax aad hubin horta wax kasta waxay rabtaa hubsiimo hal geel baa la siistaa leh. hubsiimada hal geel baa la siistaa. waxa markaa hubtid mise hubsatid qofka la weydiiyaa war xaaladaas ka waran dheh. gabadhina xaaladaas ka waran dhahdina la rabay. laakiin ninka wax hubsanen Soomaalidaan nahay wiilka waa qayaantay iyo wiilka waa kaweyntahay iyo dadki gabadhii gabadha hadalka qof kasta ula hadlo. marka gabadha marka qof dareen la waaye qof damiir la waaye way iscelin waysay. hataa waxay tiri indha shareerka maanta iska furay dhahdo waxaan u faray inaa wejigay toos inay tusay dhahdo ya marka wejigay hataa toos inaan tuso ayaan maanta go'aansaday dhahdo. marka aan dhageysana gabadhan walaasheena antaysan waaye kan waaye horta Kamaal qof la qayaani kara ma aha qof weyn waaye maskaxdiisu way ku filan tahay oo u kala dhigantaa adinkaba waa ogtihiin horta aniga weli qof ma qayaani sax hadda Kamaal qof weyn waaye qof maanta qangaara waaye qof waxa fiican wax uun kala garanaya waaye sax ma qayaanin ay leedahay ku soco walaasheeda qaaliga qof qayaame oo dhahay Kamaalo nin mi qabo adaa ku guursana horta ma jirto. aniga iyo Kamaal waqtigaas la soo marnay waqtigaas ani asaas la soo mareenay waxay tiri ani Kamaal waqti asal soo marnay waqti baan asal soo qaadanay ya marka ma jirtay dhahday wax khilaaf ama wax aniga aan markaas inta ila socdo mas inta waqti wada qaadan waa dareemi kartaa ay dhahday waa dareemi kartiin qofka duu wax kala jiraan waa qof kale uu dareemayo dhahday. marka waxyaabo kala badan way ka hadashay. marka hor u socda walaashina noo day ninka qof nin u joogo horta saas ma sameyn karto shukaansina ma sameyn karto horta waa tan koowaad. tan labaad ku soo hartay oo yacni fiidiyoyadan iyo waxa waxay tiri qof la qabo ama haweeney marwe ah shukaansi ma sameyn karto. sax waa san ogna ma sameyn karto mana shukaansi hadday suubisana qof ku talagal u suubiyo waaye. markaas kulli qof marwe ah ama marwe ah oo caruur dhashay guri degan inay shukaansi qofka la sameyso ma umanana inay dhacayso taasani ma aqaan ani kulli ma arag ya marka intaas sheegaysaa gabadha marka ku soco walaashay fiidiyoyada waxay ku imaadeen iyo waxa aysan ku imaanin adinka ma ogdin waa iska qaadateen le fiidiyoyadaas annaka mar hore soo gaareen waxay tahay fiidiyoyaasha aqad qaadateen oo YouTube ka saas u dhex wareegaya ama YouTube-lada Soomaalida ay ka hadlayaan faalo ama reaction ay ka bixinayaan fiidiyoyaashaas anaga mar hore na soo gaaran ayay tiri gabadhan. waxay dhahday Kamaal aniga mar hore ayay na soo gaaran ay leedahay. marka
ma aqaan kuley yani wax waan fahmi lahaa ma fahmin kuley wax hadaa ka fahanteen commentiga igu soo qora. marka gabadhan aad ayay u calaacalaysaa. marka Soomaalidan waxaa waaye qofka ma la hubsanaayo commentiga waa lagu soo aflagaadeynaa, qofkii waa videoshiisa waa la qaadanaa, mar walba asalee la hadaleynaa, isbuucaas dhan asaa hadaleynta ku jiro, hadaleynta asaa ku jiro isbuucaas dhan. marka waxaan leeyahay walaasheydii kulley anaga xaqiiqada ma nogi, ilaahay leh waxaa jiro ogsoon, xaqiiqda alla og. kulley qof inaan qalad uu lahayn aan dhahna qaladaa leedana ma ila haboono. marka waxaan leeyahay samarka badi, iska samar, mar walba iska samar, samarka badi. qofka samara sadkiis u helaa, samar badi, ku soco. meeshaan horta waxaan rabaa inaan mid ka caddeeyo, bataatanba ani inaanan la iqabin. ninkaas hadda sheeganayo ani inuu iqabo, aniga gabadha waxay tiri bataatan aniga nin hore inuu iqabin ay taagan tahay ayay leedahay. aniga mihii qof la qabay leedahay gabadha ay leedahay. marka maxay ku leedahay marka Soomaalida? marka waxaa waaye wax ma hubsanaya inay taagan tahay. gabadhani waxay leedahay aniga miihi gabar marwe ah. marka aan daawana marka muuqaalkeeda. ma qabo. qofkii caddayn u haya youtuberadan hadda meelaha taagtaaganoo soo dhahaya saan waay kan oo weliba wadanka ani aa ka imaada joogaan, adinkaa raba inaan si fiican idiinla hadlo. horta waxaada hubinina oo hoos aadan u hubinina, horta inaan soo bandhigtaa, horta taas qalad aa ku leedihiin. wadanka aad joogtiinna waa taqaaniin xeer uu leeyahay iyo wax aana qofka lagu xadgudbin. in qofka waxay taagan tahay wadan waxaa joogtiin sharci leh, qofka inaan lagu xadgudbin ama sharaftiisa meel looga dhicin ayay habboon leedahay. maxay leedahay gabadhan manihi ayay leedahay qof marwe ah oo nin hore u qabo mihi leedahay gabadhan. marka dadka qaladka fahansanow gabadhan ka leexda. gabadha qofka runta haday sheegto ama ay soo fariisato xaqiiqda inay sheegtay, hadday runta inay sheegtay ay taagan tahay aniga waxaas ma jiro. marka ayadii ilaahigeeda waaye. marka dembina ha gelin, idinkana dembi ha ka gelina, qofka biniaadanka ah dembi ha ka gelina. gabadhan ka leexdaan leeyahay. ani marka waxaan leeyahay Soomaaliya gabadhan ka leexda, ha laga leexdo. marka gabadha waa gabar tahay iska calaacalayso. marka aan daawano muuqaalkeeda. hadalkiisa lasoo qaato oo been laga sameeyo, iyo qofka in hadalkiisa lasoo qaato oo been laga sameeyo, intaba Sweden mamnuuc ay ka tahay. waxa qofka lagu dacweyn karo oo lagu xiri karana taas waaye. waxay ayada Sweden ay degan tahay miya Sweden ay degan tahay. waxay taagan tahay qofka dii been laga sheego wadankan aan joogno maso hadal qalad laga sheego wuu dacweyn karaa, qofkaasna waa lagu xiri karaa. ay taagan tahay Sweden. marka Sweden joogtid ayay taagan tahay. sax waaye. marka gabadhii way calaacalaysaa. marka waxay leedahay dhibkaas halii geystay leedahay. marka aan daawano. ma fahantay? horta ani Sweden waa imaanaa, maalmaan ka maqnaay si aan uga maqnaadabo. oo hadda Sweden ma joogto miya walaasheed? inay Sweden joogto amneenahay tii joogtaa he meesha joogto commentiga noo soo sheegay. Sweden inay joogto amneen horta iyada Sweden waa amneenaa maho saas maho. inay Sweden joogtaa laga yaabaa, ay degan tahay Sweden ay degan tahay gabadhan. laakiin hadda ma aqaan kuley vacation ma jirta, dalxiis ma jiraan, ma aqaan ay dhano wixii Sweden day joogto day joogin ayada leeyahay. marka waa soo baxaya caaw hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo. hadda waa galab waaye, caawanimadeeda horta waa soo baxaya. safar